soo dhawaada meel baad dunida ka joogtaan. Muuqaalkan aad buu muhiim u yahay. Adigaan daawanayna muhiim buu ku yahay. Waxaan ka codsanaa asxaabtan inaad gaarsiisid. Waxaan rabaa dadka jecel inay ka shaqaystaan online-ka, khaasatan cryptocurrency-ga ama stock market-ka. Waxyaabo waxaa jiro oo dheeraad ah oo kriptada ku jiro kale in laga faa'iidaysto. Anaga markaan tirigareynayna mimkonyada waxyaabo badan aan faa'iidnaa inaan lacag raadino lacagaha ku dhisan blockchainada kala duwan because of waan ognahay maanta Ethereum dhaqaaq fiican ma sameynayso. Intaasoo X ma sameynayso. Solana isla caawa faa'iido ma sameynayso. Qof walba og. Marka waxaan ka shaqaysanaa mimkonyada meelaha kala duwan ee blockchainada kala duwan lacagaha cusub soo baxo new cryptocurrency-da iyo project-yada badanaa ma isticmaalno exchange-yada waxaan isticmaalnaa exchange-yada madaxa bannaan. So marka maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago wax la dhaho Poly Market. Poly Market waa crypto exchange ma ahan, crypto ma ahan coin, waa Poly Market waa suuqa saadaalinta waay oo crypto based ah suuqaasoo qofkii barto lacag ka samayn karo at the same time information badan kala socon karo. Marka muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa Poly Market sida looga faa'iidaysto. Muuqaalkan kuma saabsano meme coin sida loo tiragereeyo. Muuqaalo badan baa ka sameeyay meme coin-yada qaabka loo tiragereeyo sida Axiom loo isticmaalo Axiom Pro platform-ka sida loo isticmaalo Jupiter sida loo isticmaalo Uniswap, PancakeSwap lacagaha cusub sida looga faa'iidaysto waxaasoo dhan muuqaalaa ka sameeyey. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa Poly Market qaabka u shaqeeyo sida lacag looga sameeyo sida uga faa'iidaysan kartid iyo sida loo tiragereeyo iyo inaa u baahan tahay Phantom Wallet. So markee Poly Market-o maxaa tahay? Horta number one Poly Market waa market prediction ah laga leeyahay dalka Mareykanka. Si aad u isticmaasho waxaad u baahan tahay inaad fahansan tahay Polychain. Blockchainada kala duwan oo anaga aan ka tiragareyno waxaa jiro wax la dhaho different blockchain. Tusaalo kale markii aan joogno mimcoin Ethereum xooga saarnaa blockchain-keeda Solana xooga saarnaa Polygon waa blockchain-ka waxyaabo badan ku soo baxo khaasatan NFT-yada muuqaalo badan baa kaga sameeyey iyo hadda Poly Market markaa isticmaalaysid waxaa u baahan tahay network horta Polygon network iyo USDC. Marka muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa insha Allah YouTube-kan oo idiin soo gelin doonaa saan hor u sheegay xigmad YouTube-kan waa cusub yahay hala galo waxyaabo badan oo trade-ka ku saabsan live trade-ka iyo waxyaabahaas aan soo gelin doonaa insha Allah iyo tutorial aad u fara badan at the same time Telegram-kii hal follow garay Cabdirawey waan jeclaa wax badan inaan idinla wadaago xogog aad u fara badan oo meelo badan aad ku arkina even xataa Polygon qof ka hadlay ilaa hadda ma jiro muuqaaladii ugu horeeyay waaye sida ugu fudud lacag looga sameeyo idin bari doonaa tartan. Okay, horta Polygon markaad tagtid markaad ku dhufatid website-kooda waa polygon.com waa market prediction ah. Prediction maxaa ula jeedaa saadaalinta waay. Anaga crypto markaa ku jirno marka waxaan isticmaalaynaa qaybta cryptada ah. Saadaalinta suuqa cryptada. So laba shay loo isticmaalaa. Qodobka koowaad oo ah in xaaladda suuqa aad ka warqabtid market condition-ka inaad kala socotid qodobaa ka dhigan kartaa. Market condition ahaan inaad kala socotid oo adigoona tiragareyninbo xaaladda market condition oo kale ama xaaladda marketka ayaa kala socon kartaa. Haddii kalena waa trade waa u isticmaali kartaa oo lacag money ayaa ka samayn kartaa. Faa'iido raadis waa u isticmaali kartaa haddii saadaasha aad ku fiican tahay. So marka kriptadoo kale markaan u imaano fiiriya marketka hadda wuxuu leeyahay Bitcoin price-ka bisha afraad ima soo gaari doonaa. Haddii aan ku dhufto Bitcoin price bisha afraad dadka ugu badan saadaalinta ay sameynayaan waa boqolkiiba 42 9,000 inaysan dhaafinin bishani April oo ah bisha afraad hadda aan ku jirno oo caawa ama maanta marayso 19 way fahanteen rajaynaya. So marka boqolkiiba 13 waxay aaminsan yihiin $95 inay tagi doonto boqolkiiba 4 aaminsan inay 100,000 taabanayso boqolkiiba 4na at the same time waxay aaminsan tahay inay taabanayso 70,000. So marka market condition so dadka inta ugu badan from 70,000 ilaa 100,000 saadaasha inta ugu badan waay inta kale waa 1%. So marka market condition laha xaaladda suuqa ee dadka inta ugu badan ee aaminsan yihiin ayaa kala socon kartaa. Suuqan waa suuqii saadaaliyay Trump inuu madaxweyne noqon doono. Ma fahantay? qaybtaas waa isla fahnay Bitcoin kalimahan kriptadii oo dhan haddaad aaminsan tahay dadka jecelaa ka mid tahay dad baa jecel kaliya inay ka warqabaan maxaan dhahay Ethereum dad baa jecel inay ka warqabaan Solana hadda dadka inta ugu badan Solana misay gaaraysaa prediction-ka suuqa dadka maxay aaminsan yihiin so dad badan baa aaminsan Solana boqolkiiba 53 inaysan dhaafin bishan afraad so hadda Solana misay maraysaa so Solana hadda haddaan tagno oo market-ka aan fiirino
dadka inta ugu badan waxay aaminsan yihiin 138 bay maraysaa bishan afraad Solana inaysan dhaafaynin boqolkiiba 50 mila socotaan ya boqolkiiba 50 he inaysan dhaafaynin boqolkiiba 50 waxay aaminsan yihiin $150 inaysan Solana dhaafaynin boqolkiiba 16 ayaa aaminsan dadka dunida ku nool inay 170 dhaafaynin boqolkiiba 4% ayaa aaminsan 190 inaysan bishaan maanta taariikhda 19 marayso inaysan aaminsanin event soo marka xaaladda suuqa ayaa kala socon karta qodobkaas waa isla fahnay laakiin dad waxaa jiro still saadaashan ku fiican og qiimaha Solana ay gaarayso raba inay ka faa'iideyso haddaad aaminsan tahay boqolkiiba 50 inay gaarayso haddaa $100 ku tuuratid $188 faa'iideysaa haddaa aaminsan tahay 170 inay gaarayso haddaa $100 ku durto $500 faa'iideysaa ma fahantay soo markii saadaashiina waa cilmi ahaan waad u qaadatay at the same time lacag waa ka faa'iideysaa lacag baa ka samayn kartaa waana meelaha ugu fudud lacagaha laga sameeyo ayay ka mid tahay sida maxaa ka mid ah Axiom-ka markaad tiragelinayno maanta oo dhan waxaan burinaynaa meme coin maanta oo dhan meme coin la burinayaa lacagaha cusub ee new projectyada hadda adayaan ka hadlayo kale hadda projecting wuu cusub yahay waqti yar uu jiraa already like waxaan ka soo qaadanay 50 million market cap haddana 100 oo maraya mafano new project lacagaha new cryptocurrency-da ay projectyada kale aan shalay ka hadlayno kale waxaa kamid ah dark oo kale dark waxaan ka soo raacnay 5 million dad baa ka soo raacay dad baa 20 million ka soo raacay faa'iido ka sameeyeen dark hadda haddaan tago I don't know meesha hadda marayso 10 million 5 million dad baa ka soo raacay dark u baahna dark escape watana sorry coin kala ku dhuftay waxay idul qaata dark space araba dark ku qoran oo madow ah dark oo kale waxaan ka soo raacnay 5 million 10 million hadda markii ugu dambeysay 40 32 maraya soo markee bishaan dhexdeeda hadii la fiiriyo waxaan ka soo raacnay even xataa todobiri ka hor like 14 million 15 million soo qofkii 14 ka soo raacay all the way 40 ku dhawaaday soo intaas oo exsan ka sameeyay faa'iido ka sameeyay lacagaha cusub waa new cryptocurrency-da soo markee aniga teamkayga iyo dhammaan maxaan dhahdaa ardayda waxaan xoogga saarnaa waxyaabaha faa'iidada leh markee bully market inaad saas u fahantid oo ah qodobka koowaad inaad kala socotid saadaasha suuqa qodobka labaadna inaad lacag ka samaysid marka sidee lacag uga samayn karaa stepka koowaad waay horta waxaad u baahan tahay haddii aad ku cusub tahay inaad dhahdid sign up oo ah inaad wixii iska diiwaangelisid waxaa ku sign up garayn kartaa Brave Wallet MetaMask iyo Coinbase Wallet iyo Phantom Wallet iyo Connect Wallet ama emailkaaga ana dadka inta ugu badan email kulama taliyo waxaan kula taliyaa Phantom Wallet aad bay u fududahay easy way aad bay u fududahay inaad ku sign up garaysid soo marka haddaadan Phantom Wallet haysanin website-ka tag waxaa kala ogaataa browserka haddaan isticmaalayo waa Chrome maahan waa Brave browser ayaan hadda isticmaalaya soo markii aad Phantom Wallet soo degsinaysid ama isticmaalaysid mar walba waxaad xasuusnaataa browserka isticmaalaysid soo marka Phantom Wallet qof walba yaqaan sida loo degsado casharo badan baa ka sameeyay haddana quick waa idin tusin doonaa soo markii Phantom Wallet ay kusoo degto waxaa leedahay sign up Phantom Wallet-kaada ku sign up garaynaysaa qofkaan aqoon sida Phantom Wallet loo samaysto boqolaal muuqaal ka sameeyay ilaa last year like ilaa Phantom Wallet ay soo bixisay ilaa hadda boqolaal muuqaal ka sameeyay aad bay u sahlantaa soo degso kadib sign up markaa dhahday hadda way soo degtaa wax yar kadib way furmi doontaa Phantom Wallet waa kana way furuntaa haddii akoon hore u lahayd haddii hore aad akoon u lahayd waxaa leedahay already akoon haddaadan lahayn create new akoon aad leedahay mar walbana email yaa lagu furan email ma jecli crypto markii la joogo waxaad ku furataan seed phrase oo 12 xaraf bay ku siinayaan soo marka 12 xaraf waxaad doontaa ka dhigan kartaa la soo kale waxaa dhahdaa Cabdalla oo kale Cabdalla way 2025 iska dheh Cabdalla way magacayga maadaama Cabdalla way uu yahay 2025 agree aan dhahay 12 xaraf ay ku siinayaan make sure 12 kaas xaraf inaad meel ku qoratid 12 kaas xaraf inay meel ku qoran tahay kadibna waxaa leedahay agree continue dheh kadib already Phantom Wallet-kaaga waad haysataan oo waa kana halkan ay ku taala soo marka iga xir marka Phantom Wallet-kan iga xir waa iska xirayaa uma baahna hadirtaan kan iga xir Phantom Wallet-kay halkaas ay saaran tahay soo waxaa rabaa markii inaan qodobkan ka hadlo bully market markaan joogno waxaa laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa laga leeyahay laakiin saasay tahay dalka Mareykanka kama shaqeeyo wadamo badanna kama shaqeeyo soo marka waxaad u baahan tahay wax la dhaho VPN baad u baahan tahay VPN aad buu muhiim u yahay
VPN aa u baahan tahay. So marka haddii wadanka aad joogtid uu ka shaqaynaynin, waxaad u baahan tahay wax la dhaho VPN. Aniga hadda waxaan joogaa dalka Mareykanka. VPN-kayga location-kayga waxaan ka dhigtay dalka Malta. Wadankaa doona waa ka dhigan karaa. Ani VPN-ka lacag ku bixiya, adigoo kale mid free waa raadsan kartaa. Maxaa is dhahnay? Haddii Poly Market wadanka aad joogtid uu ku shaqaynaynin, even Mareykan haddaad joogto kuma shaqaynayo. Ayadoo Mareykan laga leeyahay Mareykan kuma shaqaynayo. Waa inaad haysataa VPN. Aniga VPN-kana isticmaala, lacagan ka bixiya, waxyaabo badan oo isticmaala, exchange fara badan, crypto badan, maadaama wax badan Mareykan ka shaqaynin. Haddii wadanka aad joogto ka shaqaynaya Poly Market is good. Haddii kalena VPN u baahan tahay. Kuwo badan oo free heli kartaa. Haddaa lacag awoodidna ku lacaga isticmaali kartaa. Anigana lacaga ka bixiya ku free. Marka VPN la-aantiisa kuma shaqaynayo haddii wadanka aad joogto uu ka shaqaynayo. Hadduu ka shaqaynayo is good, uma baahna. Okay, markaan ku dhufano marka sign up baa leenahay, qof cusub aan nahay. Walletkaagii halkaas ku taalaa. Ani computer ahaan u isticmaalaya. Browserka hadda isticmaalayne waa Brave browser, maaha Google Chrome. Marka extensionka isticmaalaysa maruba xasuusno. Kadib Phantom Wallet-ka ku sign up gareynaya. Phantom Wallet marka ku sign up gareysid, lami refresh hadartaan refresh aan leeyahay. Refresh aan dhaho Poly Market. Because waxaa rabaa sign up inaan dhaho sign up baa leedahay. Phantom Wallet-kaada ku sign up gareynaya way kusoo bixi doontaa. waa confirm gareynaysaa marka confirm aa leedahay. Connect walletkaada ku xiranay. Markaa connect ku dhahdid haddana mar labaad confirm aa leedahay. Si fiican ila socdayaa. Kadib username u samaysanay. Whatever magac lagu dhaho adaa is garanayo. Magacaas u samayso Faarax Jimcaale, whatever adaa is garanayo. Kadibna confirm aa leedahay, continue. Kadib wuxuu ku diinaa emailkaaga, gadaala ka gelinaa dheh. Haddaa rabto waa gashan kartaa, laakiin aniga gadaala ka gelinaa dheh. Enable trading aa leedahay. Kadib tradingka u furaysa inaa wax ka trade gareyn kartid, confirm aa leedahay. Confirm markaa dhahdid, waxyar kadib way kusoo bixi doontaa. At the same time suuqan lacag badan baa laga sameeyaa. Okay, marka wuxuu ku leeyahay deposit lacag ku shub. Haddaad skip aska dhigi kartaa, gadaala imanaysa. Marka hadda akoonkaaga waa kana. Akoonkan waxaa kuu qoran magacaaga. Hadda magacun baa iska gelina bajaq oo tirada ka batay. Waa kan akoonkaaga waa zero. Wax trade maada sameynin, wax faa'iida maada sameynin, wax maadan value trade gareynin, wax trade maada qaadanin. Akoonkan waa kana. Positionadaada waa zero. Activity-ga aad sameyso waa zero. Profile-kaada ku dhufan kartaa inta markaa ku dhuftid oo kaleeto. Setting-kaada waxbaa ka bedeli kartaa, email u samaysan kartaa, username-kaada bedeli kartaa. Waxaa adi just basic information waa. Laakiin adi waxaad u baahan tahay haddii kriptada aad rabtid inaad kaga shaqaysto, kriptada unbaa focus gareyn kartaa. Haddii siyaasadda aad ku fiican tahay saadaalinteeda, siyaasadda xoogga saari kartaa. Haddii aad ku fiican tahay, Trump wuxuu dhihi lahaa Canada, the Fed oo ah the Fed, Ukraine, siyaasadda Romania, whatever, siyaasadda Mareykan, siyaasadda Europe, siyaasadda ku fiican tahay. Sportska ku fiican tahay, sportska kala duwan, sportska tiradoo ka batay, badanaa waxay u badan tahay sportska dalka Mareykanka. Enable trading uu leeyahay. Trading waa inaa enable ka dhigtaa. So marka sign in aad leedahay, trading inaad sameyn kartid, connection uu ku leeyahay. Kadib waxaa leedahay proof token oo ah USDC, taasaa kusoo shuban doontaa, waa arki doontaan. Confirm aa leedahay, wuu ku enable gareynaya. So marka wax yaraa sugeynaa. So marka waxaad sameyn kartaa, wax yaraan dul qaadano, waa proof gareynay. Let me sign in, confirm dheh. Okay, marka sportska, laakiin aniga xoog waxaan saarayno, aniga qaasada waxaan xoog saarno waa Trump, waxyaabaha uu sameynayo saadaalintiisa iyo kriptada. Kripto maadaama aan ku jirno, anaga kripta xoog saarayna. XRP hadday noqoto, Dogecoin hadday noqoto, MicroStrategy tusaale oo kale hadday noqoto. Hadda MicroStrategy oo kale 21-da Bitcoin ma iibsan doonaa? Haa mise maya? Hadday yes tahay, aad aaminsan tahay $100 haddaa ku turtid, 270 aad faa'iideysaa. Haddaa $20 ku turtid oo kaleeto, $55 faa'iideysaa. Haddii waxaas ay dhici weyso, $20 waa khasaartay, ficilkaas oo dhici waayo. Haddii kriptada dib aan ugu noqono, kripto bag dib aan ugu noqono, kriptada xarana dib inaan ugu noqono. Adi haddii tusaale oo kaleeto Ethereum ama Bitcoin aad aaminsan tahay, waqtiga aad sameynaysa ku kala xiran tahay. Hadda Bitcoin above may noqonaysaa 85 bisha. Hadda akoon kala furnay Bitcoin 85,000 miyay ka dulmari doontaa 25 bisha. Haddaad aaminsan tahay yes, haddaad aaminsan tahay $20 hadda ku jirto $37 aad helaysaa. May hadda aaminsan tahay 20 kale ku korayso.
ficilka aad dooratay hadduu dhici waayo lacagtaada waa khasaartay, hadduu dhacana faa'iidaada waa heshay. Een, waxyaabo badanaa kriptada ku hoos jiro. Bitcoin haddaa aaminsan tahay la sidoo kale 95,000 inay gaarayso bisha inta ka dhiman, ama 90,000, ama haddaa aaminsan tahay 70,000, whatever number aad aaminsan tahay adigaa is og. Haddaa even xataa aaminsan tahay 93,000 inay tegayso, haddaa $20 ku turtid 140 aa helaysaa. Haddee 95,000 gaarto bisha dhammaadkeeda markay la gaaro 100 iyo xoogaa helaysaa. Marka saasaa loo fahmo. Okay, hadhow markaa ka baxdidne sign out aa leedahay, log out aa leedahay, waa ka baxaysaa, banaanka ka joogtaa. Banaanka markaa ka joogtid website-kii caadi, gadaal maalin kale haddaa imaatid website-ka dib ugu noqonaysaa bullymarket.com, login aa leedahay. Login markaa dhahdid Phantom wallet-kaaga dooranaysaa, wax kale ma dooranaysa, because of waxaad ku abuuratay akoonkaaga Phantom, waxaad kaga baxaysaa Phantom. So marka sign in aa leeyahay, hadday sign up aa dhahmo akoon aa ka samaystay, username aa u samaystay, hadda login aa dhahaa, kadibna Phantomkii aa dooranaya. Halkaasay Phantom walletkii iga soo bixi doontaa, confirm aa dhihi doonaa. Hadhowna akoonkii kor iga soo baxay, akoonkaaga magaciisa adiga og magaca ku qoratid iyo lacagtaadii kaashka. Marka su-aasha labaad, sidee kaash loogu soo shubi karaa? Akoonkan horta aan ka baxo, intaas waa isla fahnay. Walletkan iska dhilidgaray uma baahni, cashar ahaan baa idinku tusinayay, already ma samaysanaa, rabaa inaan idinka tusiyo. Intaa tegayna marka, inta markaa tagno refresh aa leenahay. Refresh markaa dhahno sidee marka lacag uga soo shubay? Waxaad ugu soo shubaysaa, hadda waxaa laga yaabaa inaad joogtid oo kale halkani, ama Bully Market akoonkaaga uu joogo, ama kripto aad daawanaysid sidoo kale, isha ku sidoo kale waxyaabo kriptada ku saabsan, waxyaabo kriptada ku saabsan. Okay, portfolio iyo cash. Marka labada farqi u dhexeeya rabaa inaan tusiyo, laakiin intaan tusin ka hor waxaa leeyahay deposit. Deposit markaa tago wuxuu ku shaqeeyaa waxa la dhaho Polygon blockchain. Solana hadday kusoo dari rabaan, weli maysan kusoo darin, maray kusoo dareen way ka saareen. Hadda wuxuu ku shaqeeyaa Polygon. Marka waxaad u baahan tahay USDC oo blockchainka Polygon ah. Marka USDC waxaa kasoo dirsan kartaa Binance ahaada, qofka Binance isticmaalo kale. Hadda ani Binance-gayga waa xog kuma jiro wax kana. Marka waxaa samaysanayaa deposit aa leeyahay, USDC baan iibsanayaa, kaarkayga ku iibsanayaa. Haddee hore kuugu jirtana is good, haddee hore kuugu jirtay is good, haddaysan kuugu jirnina haddii kow ayaa iibsan kartaa. So marka waxaa leeyahay wax yar ha soo baxo, dollar aa dooranayaa, US dollar, waxaan iibsanayaa USDC. waa haddee igu jirin, waa haddee kuugu jirtana is good. So marka waxaa iibsan kartaa let's say kale $80 aan leenahay, $80 soo gelinaynaa. Waxa anaga u baahana waa $80 because of waa ku tijaabinaynaa maanta maadaama aan isticmaalayno practical. So ka badan waan rabaa inaan geliyo, laakiin $80. Kadib waxaa leeyahay marka buy, waa iibsanayaa, kaarkii aan ku iibsan doonaa. Haddii USDC hore kuugu jirtan uma baahnid inaad iibsatid. So kaarkii nambarihiisa gelin doonaa, I hope inuu iibsamo. Confirm aa leeyahay, confirm markaa wax yaraan sugi doonaa, I hope inuu ii iibsamo. Imisaan geliyey, waxaan geliyey $80 haddaana qaldaneen, $80 geliyey. Kadib waxaa rabaa inaan dhaho confirm, haddaana qaldaneen waxaa rabaa confirm inaan dhaho. I hope inuu iga yeelo, I hope inuu iga yeelo. Okay, wax yar ii dulqaata, uu iga diiday, wax yar ii dulqaata, boosaan dhaha. Hey, waxaan leeyahay $85 dhaha, bayaan dhihi doonaa, bayaan dhihi doonaa, wax yar ii dulqaata. I hope this time inuu yeelo, tookadaan inuu yeelo. $85 aan geliyey, kadib wax yaraan sugeynaa, confirm aa leeyahay. I hope tookadaan inuu yeelo, USDC aan iibsado. Okay, wuu aqbalay. Okay, USDC aan iibsaday. Waxaan rabaa inaan idiin sheego intaanan u gelin ka hor tusaalo kaleeto lacaga kugu jirta Binance ahaada. Tusaalo kale ani hadda akoonkan step by step waaye, lacaga kugu jirto. Haddii lacag kale kugu jirto ama Bitcoin ama Ethereum ama Solano, waxaad tegaysaa Binance ahaada, qaybta spot-ka tagay. Spot-ka markaa tagtid ka soo qaado kale USDC u baahan tahay. Laakiin lacag waxay kugu jirtaa BNB ama Ethereum, ama waxay lacag kugu jirtaa whatever lacag ah, adaa garanaya, Cardano, whatever lacag ay kugu jirto, ama tusaalo kale Bitcoin ay kugu jirtaa ama Ethereum. Binance markaa joogto comforta dhexe, Ethereum lacagta kugu jirtay ayaa waxaa u bedelanaysaa USDC. USDC u bedelanaya,
kista aragtidoo kale whatever $10 hadda aragti $20 USDC oo bedelnaa laakiin anaga USDC hadda waa haysanaa so marka waa kusoo shubanay hadda ay deposit aan dhahna hadda withdraw waa leenahay marka withdraw markaa dhahno waa kasoo shubaynaa lacagta aan ka shubanayno waa USDC address aan u baahnaa marka Poly market markaa tagna hadeertaan marketka because waxaan rabnaa predictionka inaan ka qayb galno haddii aad xog yacni suuqan Poly market aad ka raadinaysid sidoo kale xaaladda kriptada kala soconaysid lacagaha meelahay gaari doonaan is okay laakiin hadda qaybtan waxaa u talagalay dadka raba inay ka dhex shaqaystaan ay lacag ka sameeyaan so marka qaybta depositka ku dhufanaysa marka deposit markaa ku dhufatid addresskaada waa kana iska xaqiiji 0x oo ka bilaabana BBF oo ka bilaabana marka waxaa ku noqon doonaa Binance-geeda USDC aad doortay addresskii halkaasaa geliyay meesha marka ugu badan dadka ay qaldaan waa qaybtani kriptada markii la joogo waxaa jiro wax la dhaho blockchain anaga hadda USDC baan soo dirsanay laakiin blockchain-kan u baahannahay waxaa waaye chainka waa Polygon taas xaqaldinaha kripta markii la joogo waxaa xukumo waa wax la dhaho blockchain chainiska kala duwan chainiyada waa kuwana lacag markaad diraysid iska hubi networka ku diraysid ma Ethereum baad u baahan tahay ma Solana u baahan tahay ma BNB ma Base ma Berachain Subi Polygon anaga hadda waxaan raadinaynaa waa Polygon marka networka aan dooranayna marka addresska marka halkaas gelisid networka iska saxisa iska hubi waa iga codsi khasaarada ugu badan dadka intay uga imaataa dadka kriptada addresska markay lacagta dirayaan ayay qaldaan so marka anaga hadda USDC waa haysanaa uma baahnin BNB uma baahnin Ethereum waxaan u baahannahay Polygon Matic oo ah Polygon POS ayaan u baahannahay so marka kadib okay aan dooranaya so marka lacagta aad rabtid inaad gedisid sidoo kaleeto ayaa waxaa ka dhiganaysaa lasoo kaleeto waxaan u baahannahay $30 ka dhiganaynaa $30 u baahannahay kadib withdraw waa leenahay addresskaadana waa xaqiijisay withdraw waa leedahay so withdraw markaa dhahdid continue waa leedahay kadib wax yar security u weydiin doonaa security markaan geliyo kadib lacagtii way dirsamaysaa akoonkeena ayay noo soo geli doontaa insha Allah waqti yar ay qaadanaysaa wax yaro badneen waan yara sugaynaa insha Allah okay aan leeyahay kadib waxaan tegi doonaa overview akoonkeyga Binance-gan teginaa kadib markaa tagno $81 wili way ku jirtaa hoosa u degaynaa hoos markaa u degno hoosa u degaynaa kadib withdraw USDC in progress ku socdo oo lacagti Binance waa ka dirnay qaybtan hoose hadaa u jeedaan qaybta hoose $30 dirnay $29.98 bixiso almost $30 waaye akoonkiina hadaa ku noqono zero wili refresh aan leenahay lacagtii baan kusoo shubanay so marka $30 aa kusoo shubtay waxay soo geli doontaa meesha cashka ay ku qoran tahay kor akoonkaaga dhakadiisa markaa tagtid oo kor ah qaybta cashka ayay ku qoran tahay qaybta cashka ee sare ayay soo geli doontaa maahan qaybta portfolio waxaa marka trade sameeyo okay akoon kalena waa sameeyey oo ah xigmad ah so marka mar labaadan kusoo celinayaa waladkaaga diyaar ha ku ahaato Phantom waladkaaga mar walba xasuusno intay lacagta ka imaanayso kadib waxaa leeyahay waladkaygaan furi doonaa waladkayga markaa furo waa kana logout aa leeyahay logout markaa dhaho markaan soo galaayo maxaan u baahanahay login aa dhahaa intay lacagta nooga imaanayso kadib Phantom wallet-kii dooranaa MetaMask maahan email maahan Phantom wallet ku furnay kadibna Phantom wallet-kii confirmation u weydiin doona xataa wallet-kaada kor ka xaqiijin kartaa qaybta kor Xigmad Academy ku qoran oo ah iskuulka so marka waa kana so hadhow portfolio hadaa ku dhufatid cash meeshaan ku keeni doonaa so marka waxaa rabaa inaan fiirino lacagtii inay noo imaatay refresh alena akoonkiina dib ugu noqonaynaa I hope lacagtii inay soo gashay haddii soo galin wax yar waa kana way soo gashay $29 iyo 90 iyo xoogoogeena way noo soo gashay kadib lacagtii hadda way soo gashay portfolio-hayga iyo cashkayga waa isku mid waxuma ku kala duuno okay waxuma ku kala duuno marka laakiin akoonkani activity yar baa dhacay baa rabaa tusaale inaa usoo qaata idin tusiya haddayaan sameeyey inaa tusaale idin tusiyaa rabaa okay waxaa rabaa oo kale lesoo kale xateer waxaa samayn kartaa Twitterka oo Elon Musk oo kale ibn xateer wax walba ka qayb gali kartaa hadda lesoo kale haddaan aaminsanahay oo kale Elon Musk ku qoraa haddaan aaminsanahay Elon Musk Twitterda oo sameynayo kale waxyaaba cajiibka ka mid tahay Elon Musk wuxuu sameeyay wax la Twitterkiisa wax xateedada prediction ciyaaro ah inta Twitter oo sameynaya isbuucaasi marar qaar Twitter badan oo sameeya ilaa 500 600 tweet ayuu isbuuc walba sameeyaa hadda
18 bisha ilaa 25 intuu dhexeyso waa isbuuc walba waa maalinba jumcaha predictionka tada cayaaro 18 oo shalay ahayd jumcaha ilaa 25 soo socoto imise tweet ayuu samayn doonaa dadka intaanay aaminsan yihiin boqolkiiba 27 waxay aaminsan yihiin inuu samayn doono 150 twitter ilaa 174 twitter adee haddaa aaminsan tahay inuu samaynayo lasoo kale inuu samaynayo haddaad aaminsan tahay 200 oo twitter waxaa gelin kartaa kale $20 200 oo twitter aa dhahaa so 200 oo twitter ilaa hadduu samaynayo hadda filasoo kale maalin baa dhammaatay 5 maalin iyo waxaa harsan 24 saacadood waxyaaba predictionka ay ku fiicanto kale waxaa ka mid ah predictionka aad ka qayb galaysid lasoo kale dib u soo celino hadda aan dhahno bully market aan furaa page kale aan furi doonaa haddii aan tusaalo kaleeto cryptan ku dhufanaya lasoo kale bitcoin 25 bisha waa kana jimcada soo socoto hadduu ilaahna gaarsiiyo intan Elon Musk waa haddii aan aaminsanahay waa dateka waaya waxa aad ka qayb galaysid datekiisa waa muhiim bully market markaan joogno haddii aad aaminsan tahay Elon Musk inuu samayn doono 200 oo twitter haddii $20 aad ku tuurtid oo 200 oo twitter aan dhaho 20kii waxay noqonaysaa 100 haddaad aaminsan tahay 240 ilaa 250 twitter oo samayn doona oo badan 20kaaga 280 ku noqonaysaa so marka haddii aan rabo challengegan inaan ka qayb galo oo aan aaminsanahay 200 oo twitter inuu samayn doono ilaa 200 iyo whatever number aad aaminsan tahay haddii 20kii aad ku tuuro 200 iyo 100 iyo waxaan helayaa 80 so marka la soo kala buy haddaan dhaho VPN inaa isticmaaleynin ayay i weydiinayaan laakiin anyway VPN baa isticmaalaya so marka waxaan gelin doonaa phantom walletkayga password i weydiinaya waa gelinaya so markaan geliyo buy dhahaa buy markaan dhaho already waan iibsaday hal mar marka refresh aan dhahaa refresh markaan dhaho waxbaa rabaa inaan siiyo gameka aan ciyaarayay oo ah Twitter hadda inuu sameeyo 28 Twitter oo aniga aan ka qayb gala la soo kala refresh one more time dhihi doonaa saad u aragtaan one more time refresh la yahay okay hoos hataa u baxo waa kana gameka aan ka qayb gala oo ah inuu Elon Musk samayn doono 225 ilaa 250 oo Twitter $20 geliyay waxaan heli doona waa $285 waa sugaya marka hadda marka portfolioygii haddaa isku mid bay ahaayeen $29 haystay laakiin hadda way kala sarayaan portfolioyga haddaan ku dhufto waxaan haystaa wax la dhaho $28 laakiin cash waxaan haystaa $9 micnaheedu maxay ka dhigan tahay lacagtan portfolio ku jiro waa waxa maal gashatay ama faa'iidii khasaare ee ku tahay cashkani waa lacagta hadda ay haystid aad ku dagaaltagi kartid okay sidee marka wixii aad ka qayb gashay iskaga salgaran kartaa hadda mid aan ka qayb gasho waa kana 18 ah haddii aad aaminsan tahay ama faa'iido ay ku dhasho seel aad dhihi kartaa hadda seel haddaan dhaho waxaan helayaa already minus baa ku jira laakiin waxaan heli doonaa haddii faa'iido dhasho halkaas seel aad ku dhigi doonaa haddii marka faa'iido ay ku dhasho ama ku khasaarto maxaa leedahay claim hadhow halkan claim bay kusoo bixin doontaa inaa intuyaa rabaa claim aa leedahay whatever faa'iido ay ku dhasho waa claim garaynaysaa kadibna wuxuu ku leeyahay conform claim haddaa samaysid damins traderkaasi waa ka baxday claimka faa'iidii khasaare ku noqonaysaa so hadda refresh aa leeyahay refresh markaan dhaho kadib waxaan rabaa haddana haddii tusaalo kaleeto haddii predictionkan aan sameynay oo tweet garayn lahay 300 oo twitter cashar ahaan u bixinayay $19 ku tuuray haddii ay ku dhici lahayd waxaan heli lahay 200 something ma helin mahano okay claim aa leeyahay redeem aa leeyahay hadhow faa'iido ma dhalin laakiin haddii faa'iido dhalin lahayd halkaas kugu soo bixisa so marka whatever trade aad gashid whatever aad samaysid halkaasaad kala soconaysaa so let me one more time refresh aan dhaho refresh markaan dhaho kadibna portfolio ku dhufanayaa let me refresh it waa kaasaa halkaas trade bis ayaan ku jiraa so marka ani faa'iidada isku celcelis waa $88 haddii ku dhuftoo kale maalmihii ugu faa'iidada badnaay waa 18 bishoo kale akoonkan oo kale $600 faa'iiday maalmaha way kala duwan maalin 300 maalin $100 maalin 100 xoogo maalin 200 hadba si waay akoonkan waa casharada aan ku sameynayo maadaama muuqaalkan oosan ardayda already schoolka way yaqaanaan ardayda already studentska way yaqaanaan habka bully market loo isticmaalo akoonka studentska waa kana laakiin muuqaalkan muuqaal public waa Soomaali weyn u duubay inay la socdaan laakiin ardayda
wax barato already way yaqaanaan, way la socdaan, faa'iidooyin way ka sameeyaan, akoonkaana waa ku tusiyey, negative maahan. So marka akoonkaada markuu faa'iido leeyahay, profitkaaga iyo khasaaradaada halkan uu kaa tusinaya. So marka mid khasaara idin tusinaya marka oo waxba faa'iido laga sameyn. Hadda akoonkan oo kale xigmad waa shalan sameeyey, xigmad oo kale ku qoran xigmad academy maho profileka waa kana xigmada ku qoran. akoonkan oo kale trade wuxuu sameeyey hal mar uu sameeyey, total lacagtan trade gelin 200 waaye, lacagtan gelina waa $9. akoonkan hadda haddaan kaga dhufto portfolio waa minus waaye, all time high haddaan tagna meesha ugu sareysay minus waaye. shalay oo 17 heeda aan gelina lacag minus uu ku jira hata akoonkan. Profitkiisa iyo losskiisa all timekiisa oo dhan waa loss oo ah $9. So marka akoonka markuu faa'iido leeyahay halkaasaad ka arkaysaan. So marka kan hadda aynu ku tusinayo all timekiisa haddaan fiirino average isku celcelis 80 iyo xoogo dollar faa'iido, maalmaha qaar 700 800. akoon kale waxaa jiro oo intaasoo kun faa'iido aan ka sameyno. So marka bull market saasaa loo isticmaalaa. Hadda haddii aan tago tusaalo kale marketkan ku dhufto portfoliohayga waxaa ku jirto $28, laakiin cashkii waxaan haystaa $9. So that means waxaan haystaa $9 aan ku dagaal tago keliyan haystaa. haddii portfolio aan ku dhufto active positionada waa hal xaba ku jira oo ah Elon Musk haddii 25 bishi la gaaro oo sameeya 225 Twitter ilaa 250 Twitter, ani $19 geli, laakiin waxaa heli doonaa 285. haddii Twitter kan tusaalo kale waxyaabaha bull market ku fiican waxaa kamid ah haddii Twitter badan uu sameeyo, hadda ka soo qaado kale Twitter badan hadduu sameeyo oo loo soo dhawaado 200, faa'iidadeeda way sii kacaysaa. Percentage-kan wuu kici doonaa, idinkaa gadaal ka arki doono. haddii faa'iido aad ka helo xataa qasamaha 200 inaa sugo. haddii 19kaas ee lacag ii dhasho oo sameeya asaga 190 Twitter ay 200 usoo dhawaato, faa'iida halkan ii kori doonto, hadhowna sell aa dhihi doona, whatever faa'iida ii korto halkaasaan ka heli doonaa. waan sugayaa maadaama week ay tahay. haddii lacagteeda dhan sida aan rabay ii noqotane sell aan dhaha, faa'iidada ka qaadan doonaa. kribtadana sidoo kale prediction yani qasam ah inaa bull market isticmaashid, laakiin ani cilmi ahaan baan ku barayaa maadaama kribtada aan ku jirno oo aan ka taragareyno blockchain kala duwan, waxyaabo kala duwan aan ka taragareyno, meme coin laga taragareeyo, dadka inaan barno siyaabaha lacagta lagu sameyn karo. meeshaana faa'iida taal, waxa ka baxay waa wax yar, waxa ku soo galayna waa wax badan. tusaalo kale haddii aad maanta aaminsan tahay BTC 25 bish inay gaarayso, la soo kale aniga miyaha waxaan aaminsanahay BTC 25 inay gaarayso 87,000 oo kale, ama inay soo daadan doonto $81,000 ay gaari doonto. haddii aad aaminsan tahay waa $9 ku turtid $100 kuu noqonaysaa, literally $9 bixisa $100 kuu noqotay. haddaad aaminsan tahay inay ay gaari doonto la soo kaleeto 89,000 aad ku turtid $9 kuu noqotay. haddii $100 aad ku turtid la soo kale $100 aad ku turtid 200 banaanka taala. marka suuqan faa'iidadaas uu leeyahay, saadaasha ku fiican tahay. arinta Twitterka marka portfolio haddaan tago Elon Musk oo kaleeto la soo kale hadda waxaan hayaa $100 oo kala haya, ama 300 oo kala rabaa inaan ka qayb galo. haddii 300 aan haysto 3 isbaara dhigana, tusaale kale waxaa leeyahay hey $100 inta ku tuur 300 helayaa, 100 kalena halkan ku tuur $500 heli doonaa, 100 kalena halkan ku tuur $1,200 helayaa. soo markay 3 meel aad dhigatay, 3daas meel mid kamid ah hadduu ku dhaco ama lacagtaada way ku soo noqotay ama boqolkaagii faa'iido badan oo ku dhalay. marka shaxda looga sii faa'iideysto iyo casharo badan oo dheeraad ah, of course ardayda maalinlaha aan ku imaanina. haddii ardayda ka mid tahay already casharkan waa taqaanaa, haddaada ka mid ahaydna kaal nagu soo biir, waxbaro, cilmiga aad muhiim u tahay, qofka hadduu wax barto ma khasaarayo. sidoo kale meelo badan baa wax ka ogaanaysaan. waxyaabaha anigaan xoog u saarayo suuqana kripto waxaa ka mid ah qofka inuu muuqaalkan youtube-ka xigmada soo gelin doona insha Allah, hala follow gareeyo, subscribe badan hala gaarsiiyo, casharo badan oo trade ah iyo waxyaabo badan oo Soomaali hore u arkin baa rabaa inaan soo geliyo. suuqan horta lacagaha waaweyn waa long term investment oo faa'iido badan ma lahan. meelaha faa'iido badan leh waan ognahay oo ah blockchainada kala duwan. maanta Ethereum iyo Solana xalay ka tahay inay lacag sameeyaan, laakiin lacag badan oo Ethereum iyo Solana ku dhisan hadda maanta si walba aad Solana u geliso $1,000 isla caawa faa'iido kama helaysid. maanta si walba XRP lacag u geliso isla caawa faa'iido kama helaysid. maanta si walba lacag u geliso Ethereum isla caawa kama helaysid. laakiin maxaa lacag ka helaysaa lacagaha ku dhisan Solana, Ethereum
mimkooyinda kala duwan new projectyo badanaa jiro aan ka hadalna ardayda xataa way ka warqabaan tan dark maalinweedaan ka hadlay faa'iido badan ay samaysay hadda sidoo kale alio faa'iido badan ay samaysay iyo lacago kaloo aad u fara badan waxaa kaloo usii dheer mimkooyadii oo maalin walba laga faa'iidaysanayo soo marka daas waxa anaga aan xoogga saarayno cilmiga waa shay qaali ah qofka maanta jaamacad markuu aad waxbuu baranayaa at the same time anagana sidoo kale iskuul baan nahay oo ah inaan wax ku barno cilmigana waa waxyaabaha ugu qaalisan oo qofka lacag ku bixin karo waxaa baranaysaa lacagtii sida exchangeada loogu shubto looga soo saarto sida blockchainada kala duwan loo isticmaalo waa meesha keliya ka baran karto waa anaga and that's why iskuulka aan xoog u saaraynaa inay dadku wax ka bartaan and that's why xafiis dhan soomaali u sameynay waca koolgaree yarka soomaali nagu soo bir kaala wax baro wax naguma khasaaraysid because of cilmiga aa barato adigoo ku anfacaya noloshaada inta ka dhiman xatir miimkoyn kuma khasaaraysid kribtaada ku khasaarin haddaa hesho informationka saxda laakiin qof indhoola haddaa tahay iska socdo khasaaradaada badanayso xatir iskuulka waxaan kusoo darnay qofka inuu iska diiwaangelin karo USDC haddaa USDC haystid literal iskuulka waa iska diiwaangelin kartaa USDC base adoo kusoo diraayo ama USDC Solano adoo kusoo diraayo waa diyaarna akoonadii xataa USDT Ethereum haddaa isku diiwaangelin kartid waa diyaarinay numberkii customer serviceka waan sameynay sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa casharadii stock market oo hadda almost ready ah stock marketka casharadii anagana waxaan nahay the only school haddeertaan casharada stock marketka diyaar ah kribtadii any blockchain anything so marka wariyaan idinku daalinin Polygon isku daya challenge-ga ka qayb gala haddii kalena qasam ah Polygon inaad ka qayb gashay challenge-ga ka jira meeshaasi oo prediction-kaas ku fiican tahay saadaalinta haddii aadan ku fiicneen just suuqa xogtiisa raadi lacag hadda XRP hadda jeceshahay dadka inta ugu badan fiiri XRP maxay saadaalinayaan oo ah intee u badan boqolkiiba 45 XRP $2.50 inay tagi doonto ilaa $2.50 soo marka $2.70 boqolkiiba 90 bas aaminsan $3 inay tagayso boqolkiiba 2 aaminsan soo marka halkaasaa kala socon kartaa lacagaha qasama xataa challenge inaad ka qayb gashay haddaa aaminsan tahay XRP inay aadi doonto la soo kaleeto $3 inay tagi doonto haddii $100 aad ku tuurtid 3400 banaankay taala ma fahanti waxyaabaha suuqan uu ku fiican yahay kamid tahay haddii bisha afraad 30keeda oo maanta marayso 19 bisha 30ka bisha hadday ku dhacdo $3 XRP $100 aad ku tuurtid 3400 banaankay ku taala ma fahanteen waana midaan sameyno akoonkaan hadda cashar ahaan ku duubaa meelaha qaar $3 iskaga ture boqolkaaga door labada boqol banaanka waa maalinle waa ujeedaa taariikh walba waa halkan everyday waa ujeedaan everyday waa ujeedaa halkaasi maalin walbaba meesha ugu yar waa anoo cashir ka sameynayo kaa ku shaqaysta akoonka ku shaqaysta waa gooni because akoonka hadda haddaan fiirino oo la soo kaleeto akoonkan oo kale historigiis waa dheeryahay laakiin waxaa rabaa akoonkan profilkiisa inaan siiyo yacni inta trade la qaatay iyo inta lacag la trade gareeyay iyo inta profit average-ka ah ayaa tusaale halkan idin yaalo hadda akoonkani waa zero kan hadda aan sameynay insha allah hadda waa ujeedaa akoonkan xigmad waa zero hal trade bisaan qaadanay kaasna waa ku khasaaran because asal loo saaraba inaan idin tusiyo laakiin waxaad arki doontaan akoonkan profitkiisa iyo losskiisa oo -9 ah oo khasaare ah inaa muuqaalo badan aad ku arki doontaa asagoo profitkiisa average-ka ay tahay minimum $1 $1,500 $2,000 ayaa arki doonta insha allah waxaa rabaa inaan idin siiyo si live ah mar walbana aan soo geliyo youtube-ka week walba isbedelka ka dhaco caawan ugu horeyso lacagta kuwaad ku shubi doono maxaa yeele akoonkan already trade badan ku qaatay intaasoo trade baa ku galay intaasoo cashir baa ku sameeyey marka average profitkiisa way fiican tahay oo positive waay akoon positive ma rabo inaad tusaale idin kaga dhigo maxaa yeele waxaa raba akoon live ah akoonkan hadduu cusub yahay February la sameeyey wax trade ma ku qaadan so inaad ku aragtaa insha allah bull market sidoo kale dee mimkooyadii waxyaabahaas oo kale insha allah war waa mahadsantihiin muuqaalka halkaasaa ku joojiyey telegramkayga cabdalawey soo follow garay wax badanaa ka faa'iidaysaan noloshiina wax badan bedeli doonaa meel walba iga soo follow garay cabdalawey twitterka soo follow garay cabdalawey waxaa soo follow garaysaa maxaan dhahdaa telegramka asxaabtaada wada dir at the same time youtube-kan subscribe garee wax badan aan soo gelin doonaa war mahadsantihiin qaar baa idinkaga tegey haddaa su-aalo badan qabtidna soo wacdee kaalay haddaadan nagu soo biirin wac nambarkeena nagu soo biir wax badan ay noloshaada bedeli doona insha allah asalaamu calaykum